danaheena diin iyo dunyaba doorka aan leedihina runtii waa mid muhiim ah oo wixii wanaagsan inay isu taagtaan markaa waa soo dhaweynaynaa aadaab saxafi muslim dhowr qodob waxaan ka oran doonaa insha Allah daqiiqadaha soo socda qofka saxafiga wartabiyaha muslimka ah iyo aadaabta looga baahan yahay haddaynu dad muslimiina aadaabta waxa ka runta oo shayga runta la yiraahdaa cid walba way ku wanaagsantii qofka wax baahinayana way ku wanaagsantii oo waxa ku xidhan waxa la yiraahdaa mistaaqiyadiisa ama shakhsiyadiisa ayaa ku xidhan oo waxyaabaha lagu xusho wararka ama lagu qiimeeyo mu'asasadii hay'adda warka baahinaysa waxa kamid ah hay'addaas waa hay'ad warkeedu run yahay taasaa waxyaabaha ugu badan ay suuq ku hesho kamid ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam guud ahaanba ummadda islaamka runtu ku dhiirigeliyo wuxuu qofku runtu ku dadaala oo uu ku dadaalo xataa yuktaba cinda allahi sidiiqan ilaa jeero rabbi agtiisa runla lagu qoro marka arrintaasi aad bay muhiim u tahay soomaaliduna waxay yidhaahdaan beentaada hore runtaada dambey dishaa marka hadduu qofku lagu ogaado dhowr jeer oo been sheegay inta dambena run uu wada sheego kaarhkiisii hore waa u xumaaday qodobka labaad looga baahan yahay waxa weeye al-amaanatu fi al-akhbaar waxa uu sheegay qofku inuu amaanadooda ilaaliyo war baa laga yaabaa inuu soo qaado waxba laga yaabaa in laga codsado inuu baahiyo cid baa laga yaabaa faalla inuu ka bixiyo marka waa inuu amaanada ilaaliyaa amaanadaasoo loo yaqaan amaanatul adaa baa la odhan jiray cilmiga xadiidka berigii la warin jiray amaanatul adaa qofkani hadalka sidii uu yidhi iyo goobtu ka yidhi iyo wixii ku xeernaa mulaabasaad baa la yidhaahdaa waa inuu muuqaalkaasoo yaro dhigaa laakiin mararka qaarkood waxay iska dhacda inuu qofku googoosto meelaha uu doonayo dabeetana uu isu geeyo qofka simbirixooyin wax u eg sawirkii qofku markaa wax kaluu soo baxaya oo isagoo marna haale marna run leh marna waxaasi ma jiro iyo wuu jiraa intuu isu keeno muqtadafaad uu sameeyo googooyo hadalladii ay la socdeen si kale u dhigi lahaana uu ka soo dhex saaro in qofkiiba markaa muuqaal kale uu ka sameeyo sida sawiradan la isku kabkaboo kale ayaa hadalkiisiina uu u fool xumaanaya marka amaanada la yidhaahdo amaanatul adaa qofku warka sidiisa inuu guto aanu khiyaamo ku samayn aad bay u muhiim tahay nabiguna markuu ka warramayo munaafiqa wuxuu wayda'tu min khana marka wax lagu aamino adduun lagu aamino akhbaar lagu aamino sir lagu aamino wuu khiyaameeyaa marka arrintaana qofka muslimka ahi ila fadeexadu ma jeedee warka sidiisa u gudbiyaa waxa ka mid ah qofka muslimka ah ee saxafiga ah aadaabtiisa inuu iska ilaaliyo wixii fitna kicinaya run waa la sheegayaa saxaafadda run waa looga baahan yahay laakiin ogow marbay runtu ka shar badan tahay beenta marbay beentu dhaantaa runta marna runta beenta dhaanta waxaan leeyahay beenta aba runta dhaanta taa macnaheedu waxa weeye warkii markuu keenayo in la isku kaco laba dagaalamada oo kelmadda aad tidhi ummado dhami ku jabaanba halkeedaad ku xidhaysaa waxay noqonaysaa waxa loo yaqaano isku dirka ayay noqonaysaa adoo waxaad doonaysaa xaqiiqo inaad sheegto oo waraad sheegtay laakiin waxaad ogtahay warkaa markaad soo gudbiso in la isku kacayo oon la kala hadhaynin marka taasoo kale waxa loo yaqaan waa fitan marka fitanka in la kiciyana run sheegiddeed noqon mayso waxaa ka mid a shayga la yidhaahdo atathabut iska hubsiimo akhbaarta qofku tii hore waxay ahayd inuu isagu run sheego tan dambe tathabutkuna waxa weeye warka aad gudbinaysaa inuu isaguna run yahay oo dadka aad had iyo jeer wax ka qaadanayso waa la yidhi un arrintu maaha laakiin wixii xaqaa'iqahee jira inuu qofku ku xisaabtamo ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binabayn fatabayanuu qof faasiqa oo beenaalay hadduu war idinla yimaado iska hubsada atabayunu watathabutu fi lakhbaar marka qofku haddii dee akhbaartii iyo wararkii uu sii daayey goor walba lifaaqu inuu ka dawado raalli naga ahaada sidaa umaanaan jeedin kii hore been buu ahaa waa idinka raalli gelinaynaa waxaa markaa imanaysa oo talo marka hore muxuu isaga hubsan waayey marka arrintaasna aad bay muhiim u tahay waxaa ka mid a mabaadida islaamka qiimaha badan ee lama taabtaanka ah inaanu qofku u bixin inuu dumiyo
waayo inagu gaalada waxaynu kaga duwannahay waxaynu nahay dad aan maslaxad u noolayna mabaadi u nool mabda baynu noolnahay diin iyo qiyam iyo akhlaaq ayaynu noolnahay ilaahayna waynu raali gelinaynaa aakhirana waynu turanaynaa ma ahun waxaa doonto sheega ma wixii naftu doonto sidaa daraaddeed ummadaha kaleba waxay leeyihiin waxyaabaha dalkooda ka mamnuuca ama distoorkoodu ka soo horjeeda way joojiyaan marka innaga distoorkeeni nidaamkeenu waa waxyiga iyo qur-aanka marka wixii aad leedahay waxaasi mabaadidii islaamku ka hor imanaya qofkaasi waa iska daynayaa iyadana u bixi maaya akhbaarta caalamka o dham hadday ka hadlaan isaga wuxuu leeyahay islaam ahaan diin ahaan waxa inaynu baahinaa dee diinteenna ay naga reebaysa maslaxadu ma noolin iyo mushahar inaynu helo ama dadku waxay danaynayaan inaynu baahinee wallaahi qadiyadaasi waa qadiyad mabaadidii islaamka taabanaysa waxyaabaha runtii muhiimka ah qofku inuu ilaaliyo waxaa ka mid a muraacaatu alakhlaaq alfaadila akhlaaqda dhaqanka wanaagsan islaamku uu leeyahay qofka muslimkaa lagu yaqaano bulshada islaamka laga doonayo inuu ilaaliyo oo waxaa laga yaabaa ummadaha shisheeye marar badan ilbaxnimo inoo sheegta inay kuba faanaanba dad qaawan iyo dad filimo xun inay baahiyaan iyo waxyaaba isleeyiin dadkaa xiisaynayo oo bulsho badan baad ku helaysaa oo aad arkayso ama dumar qaawan ama wax iswaxaynaya ama wax aada u fool xun waxyaabahaasoo kale qofka muslimka ah hadday qowl tahay iyo hadday ficil tahay iyo hadday sawir tahayba iyadana wuu iska ilaalinaya wuxuu leeyahy dee dhaqankeenaan inoo ogolaanayn waxaas ama dhaqan ahaan waxaan wax xun weeye oo dhallinyarada kharibaya oo bulshada kharibaya oo samayn kara waxa laga yaabaa sawiroo qofku baahiyuu sii daayey inuu intaasoo qof suneeyo hamadda ku kiciyo ay ku kala sinaystaan marka qadiyadda noocaasa kale akhlaaqduna iyaduna waxyaabaha lama taabtaankaabay soo gelaysaa maantana meelaha wax laga baahiyo marar badan baa laga yaabaa ujeeddada laga leeyahy inay noqoto in akhlaaqda dadka lagu dilo si loo qabsan karo oo loo addoonsan karo waxaa ka mida waxyaabaha qofka muslimkaa laga doonayo in aanu marka had iyo jeer ay noqoto wax la baahiyo waxa uu baahinaya inaanay shisheeyaha xoojinin shisheeyaha iyo cadowga muslimku uu leeyahay terminolojigoodii ama erey bixintoodii inaanu soo xambaaranin siday u fikirayeen inaanu u fikirin siday muslimiinta iyo dalalkoodii islaamka u weerarayaan inaanu isaguna isku garab taagin oo dee had iyo jeer waa xarbu tadaafuc baa ka socda caalamka siriix baa ka socda marka wax badan baynu inagu ilaalinaynaao waxaad ku xisaabtamaysaa war ummadahaasi waxa ay baahiyeen waxaasay ka leeyihin marka arrintan islaamka xoojin maysee shisheeyahay xoojinaysa qarannimadeenna xoojin maysee burburkay xoojinaysaa dad baa dan kale waxan sidaa daraaddeed waa la sii daayaa un sax maaha laakiin arrintaasina aad bay muhiim u tahay inaanu waxa aad nashrinaysa ama baahinayso aanu noqonin mid cadowga islaamka iyo dalkeenna burburintiisa xoojinaya ugu dambayntii qofka muslimkaa agabkan gacanta ku hayaa waa inuu ogaado kelmaddiisu inaanay kelmad caadi ahayn waa kelimatun tuxmalu ila alaafaaq ilbiriqsi bay caalamka o dhan ku gaaraysa marka hadday shar tahay kelmaddiisaasi waa tii uu ku naar mudanayay laga yaabo naarta in muddo dheer ugu sii dhaadhaco haddii ay khayr tahayna waa tii uu janno ku mudanayay marka waa inuu ogsoonaado waxaan inuu ilaahay ugu dhowaan karo hadduu wanaagsan yahay hadduu xun yahayna ilaahay ka fogeyn karo taasina waa midh aad u muhiima sidaa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacili xadiidkii saxiixa qofka qof khayr tusiya waxa uu leeyahay khayrkaa cidda samaysay oo dhami intay ajri heleen in la eg maalan clib baad ku dhufatay waxbaad t v ka baahisay wixii waxaa daawaday malaayiin qof wax wanaagsanna wuu ahaa malaayiinkii ficil bay sameeyeen intay ajri ka helaan in la eg baad ka helaysa waxaa laga yaabaa sheekha halkaa fadhiistee dhowrka boqole qof wax u akhriyey inaad adigu ka ajri badato waayo wixii sheekhu uu baahiyey soo daayey baad adiguna sii baahaysay marka qadiyadaasina waa inaad u niyootaa dacwad ilaahay iyo inaad ilaahay ugu dhowaato oo ilaahay kaaga raali noqdo oo miisaanka xasanaadka maalinka dadku uu baahan yahay lagu saaro markaa qofka muslimkaa humuumtaa iyo dareenkaa iyo mabaadidaas u xambaarsan yahay isagoo iska shaqaysanaya isagoo magac iyo manfac iyo maalba ka helaya saxaafadiisii haddana waxaasoo dhan marka uu ilaaliyo waxa uu noqonayaa mid dadkii aan sun u baahinina subag u baahiya
ma'zuur aan ahayn mid dambaabay maahe waa ma'juur markaa mid ajreeroo noqonaya waa sida loo yidhaahdo waa seef laba af leh marka afka wanaagsan baynu ku shaqaysanaynaa ka xunna waa iska joojinaynaa intaan hordhac ahaan u sheegi lahaa waa intaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum sheekhu aad buu mahadsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo wuxuu runtii sawir fiican inaga siiyey akhlaaqda iyo aadaabta iyo